dunida daafeed oo loogu dabaaldegay soo dhoweynta isbeddelka cusub ee Soomaaliya iyo madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa qayb ka ah Soomaalida South Africa oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn magaalooyinka Johannesburg, Cape Town iyo BE. waxaa soo shacbaxay shilal baabuur oo sababay ilaa 3 dhimasho halkaan soo xaqiijinay hal qof dhaawacuna gaaray ilaa 5 qofood oo ay ka mid yihiin haweeney iyadoo baabuur ku jiray wadada dhexdeeda laguna cararay isbitaalka weyn ee magaalada Cape Town. isku soo baxan oo ah midka abad ugu badnaa lagu taageero madaxweyne cusub ayaa ku soo beegmaya waqti dalku uu ku jiro wajiyo kala duwan. waa kuwan qaar ka mid ah Soomaalida South Africa oo muujinaya shucuurtooda ku aadan madaxweynaha cusub. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. madaxweynaha Soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud waxaan u hambaleynayaa madaxtinimada uu ku guuleystay. waxaan kaloo naxayeeday bulshada Soomaaliyeed ka codsanaynaa dhalinyarada haweenka ganacsatada dhammaan in la wada shaqeeyaan. waxaan kaloo codsanayaa qurbo joogta Soomaaliyeed inay waxaan ku dalkooda dib ugu noqdaan ay dadka ay waxaan ku wax u qabtaan. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi. waxaan masalaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed shucuurtayda caawa lama soo koobi karo. waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh ee doortay xasan sheekh. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cabdi Fataax Ali Samadar Sablaale, Somali Journal, South Africa.